saacadihii hore ee maalinkii Arbacada ee 22 bishan June ee sanada 2022 wiilkiina dhaafay ayay ku beegantahay markii raabstarkii cajaa'ibta badnaa ee wiilkii reer New York ee Lil Tjay ay rag nacaba ku dileen xilli uu tamashliin kula jiray qaar ka mid ah asxaabtiisa taasoo sababtay in loola cararay isbitaalka si loola tacaalo xaaladiisa caafimaad. haddaba warkan ayaa noqday kan ugu saameynta badan dhanka social media gaar ahaan dadka luqadda Ingiriiska wax ku qora iyadoo meel kasta ay soo dhigayeen taageerayaashiisa sidoo kale rappers kale oo faciisa fanaanka iyo rapperka caanka ah Lil Tjay waxaana ka mid ah fanaaniinta reaction-ka ka bixiyay sidoo kale falcelinta murugada leh fanaanka caanka ah Lil Baby iyo sidoo kale Tekashi 69 doesn't warrant a laughing or crying emoji. Obviously he's doing it for people like me to talk about. haddaba waxaan isweydiinaynaa muxuu uga saameyn badan yahay fanaaniintii hore ee sidiisoo kale ahaa kuwa si hore loo dilay caana ka ahaa isaga marka xitaa qaar badan la barbar dhigo sida Tupac, XXXTentacion iyo King Von iyo fanaaniin kale oo fara badnaa. saameynta uu leeyahay muuqaalkanina maxay tahay balse intaasi ka hor waxaan idinka mahadcelinayaa sidaad ugu xidhantahay YouTube-keena Baltahab TV la garee muuqaalka si uu gaadho dad badan oo adigoo kale ah. subscribe haddii aad nagu cusub tahay si aad u hesho muuqaalada dambe lana wadaag saaxiibadaada haddii ay macquul tahay. Officers would find a 20 haddaba all and all intaynan si weyn u gudagelin muuqaalka waa muhiim inaad la aqoonsato shakhsiyadda fanaankan iyo cidda uu yahay booska uga jira ficiisa iyo dhiggiisa kale ee rapperska 7ka wiilka 7 milyan ku ururiyay sanadihii koobnaa ee uu ku maaweelinayay codkiisa faaniska daacadda iyo asxaabtiisa kala socda bartiisa Instagram. alleged shooter Muhammad will face court process and more news will come. asalka magaciisa waa Tyon Jaden Married balse waxa uu caan ku noqday xilliyada shaqada iyo fanka. magaciisa adduunka waa Lil Tjay wuxuu ku dhashay April 3 sanadii 2001 gudaha New York gaar ahaan halka uu ku soo caanbaxay kuna soo barbaaray ee xaafadda Bronx. waa rapper cod sameeyay iyo sidoo kale fanaan ku hantay codkiisa mucjisada malaayiin taageerayaal waqtigii koobnaa ee ku jiray fanka. wuxuu caan ku noqday bilowgii fankiisaba heestiisa caan baxday ee Resume taasoo gaadhay daawasho ka badan 330 milyan oo qof dhanka YouTube-ka. Lil Tjay waxa lagu xasuustaa albankiisa caanka ah True to Myself oo sii daayay sanadii 2019 kaasoo ay ku jireen heeso badan oo hana qaaday iyo sidoo kale albankiisa labaad ee Destiny to Win. rapper Lil Tjay wuxuu sidoo kale isla albankaasi u fadhiistay kaalmaha ku sarreeya dhanka qiimaynta shirkadaha muusiga ee Billboard waxaana albankaasi ka mid ah kana soo shaacbaxay heestiisa cajaa'ibta adduunka qabsatay taasoo kaliftay in lagu dhageysto meel kasta guri kasta iyo albaab kasta caana ka dhigtay sidoo kale fanaanka Lil Tjay. heeskaas oo ku wehelinayay fanaanka caanka ee Six Lack heestaasi waxay noqotay hees hid ah muuqaal qurux badan ay u sameeyeen sidoo kale gebi ahaanba fanaaniintu ay noqdeen fanaanay ku soo hiritaan oo ay ku daydaan kadib markii uu qaaday heestaas noqotay hees cajiib ah oo cid kasta ay ka hesho. Tyon Merritt, professionally known as Lil Tjay, was just recently wuxuu qayb weyn ku lahaa bandhig faneedkii caanka ah ee Rolling Loud Miami Festival oo ay ku wehelinayaan rapperska sida weyn loo jecel yahay Migos iyo sidoo kale Travis Scott oo runtii ah fanaaniin aad loo jecel yahay 7kan iyo waqtigan inuu joogno dhanka raabka iyo fanka America. one at a Chipotle restaurant and another at a nearby Exxon. waxay xiriir jacayl wada lahaayeen muddo dheer fanaanada caanka ah ee Ruby Rose taasoo ay wada socdeen muddo badan balse ugu dambeyn uu burburay xiriirkoodaasi. Tjay went on to call himself the king of New York. Lil Tjay waxaa lagu tilmaamay inuu yahay qof friendly oo inta badan la socda saaxiibo badan sidoo kalena fanaaniinta iyo rapperska kale oo dhan ay saaxiibo yihiin aadna uu yar yahay cadawga uu ku leeyahay dhanka fanka isagoo aan ahayn fanaaniinta ku daandaansada heesaha fanaaniinta kale ee aadka sida foosha xun ugu caaya. haddaba sidee ayay wax u heleen xidigii starka caanka ee Lil Tjay maalinimadii Arbacada 22 bishan June ee sanaddan 2022
sidaan xogta ku helay maalinimadii 4/22 bisha wuxuu ahaa Lil TJ mid ay ku heliyaan gaadhigiisa labadiisa saaxiib kale Antonio Boyd iyo sidoo kale Valdez waxaana waqti qurux badan oo tamashlac ku qaadanayeen maqaaxida caanka ee Chipotle halkaas ayayna taagnayeen barxadeeda hore balse daqiiqada kadib waxaa lagu furay rasaas laba geesood ah waxaana ku dhaawaceen goobta raabarka caanka ee Lil TJ way xabado badan uga dhaceen jaska iyo laabta dhankiisa midig halka saaxiibkiisa Antonio Boydna xabadi ku dhacday isagana dhabarka. Reports claimed that the shooting which happened at waxaase isla markiiba loola cararay isbitaalka iyadoo aad u adag tahay khatarta raabarka Lil TJ laguna qiyaasay xaalad critical condition ah cabsi badan inuu dhinto raabar Lil TJ iyo sidoo kale saaxiibkiisii Antonio Boyd oo dhabarka xabadi uga dhacday. haddaba isla markii dhacdaduna ay dhacday ayaa waaxda booliiska ay hub ka heleen Antonio Boyd iyo sidoo kale saaxiibkiisii Valdez labadubana markaasi waxay ku weheliyeen oo la socdeen ninka la yiraahdo iyo raabarka caanka ee Lil TJ waqtigan waxa dhaawacay ninka la yiraahdo Antonio Boyd balse waxa laga helay hubkaasi waaxda booliisku ku sheegeen inuu gabi ahaanba sharci darro ah labada nin laga helay sidaasina waxa lagu xiray oo jeelka loogu taxaabay ninkii loo dhan jiray Valdez waxaanay hubku muujiyeen oo ay la soo baxeen markii lagu furay rasaasta cidina kuma ay ogeyn inuu yahay hub sharci darro ay hore u haysteen markaasina ayaa la ogaaday markay la soo baxeen. Supposedly involved Lil TJ was a deadly shooting that maalin kadibna waxaa jeelka loo taxaabay nin la yiraahdo Mohammed Kennedy oo 27 jir muwaadin madow ah oo u dhashay Mareykanka gaar ahaan gudaha New York kaasoo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilka fanaankan iyo saaxiibadii uu soo abaabulay qorshahan oo ku salaysnaa baadhasho iyo dil wada socda labadaba waxaana lagu sheegay inuu yahay shakhsi dambiyo badan hore uga galay waxa ay sidoo kale qaybaha dambi baadhistuna ay hore u ogaayeen. Mohammed Kennedy sidaas ayaa si loogu dhaadhiciyay isagana jeelka waxaana lagu hayaa baadhista lagu ogaanayo inuu ka dambeeyay falkan iyo inuu isagu ku lug lahaa ilaa hadda balse waxa la xaqiijiyay isagu inuu ka dambeeyay sidoo kalena hub lagu qabtay goobtaana uu ku sugnaa sababta uu goobta ku sugnaana aanu cadaynin balse waa la cadayn doonaa xaqiiqada ka dambaysa arrinkiisa. They'll walk around a lot of times by themselves and you won't even haddaba sida laga soo xigtay wargeyska caalamiga ah ee Times waa wargeys caalami oo gabi ahaanba adduunka laga ictiraafsan yahay ayaa waxa uu tilmaamay Lil TJ in dhakhtarkiisa gaarka ah ee markaas gacanta ku haya uu yiri 15% waxa uu leeyahay badbaado balse waxay u muuqataa inuu noqon doono qof baaralays ah oo gabi ahaanba dhinac ka mid ah jirkiisa aanu shaqaynin waxaanu ku jiraa koomo muddo 3 casho ah ninka la yiraahdo Lil TJ. The other person who was apparently his homie was discovered and found down the road at a gas station. He had suffered from farcilnayo qoraalla goob kasta ay dhigeen taageerayaasha fanaanka Lil TJ kuwaasoo muujinaya ducada iyo inay rabaan fayqabkan inuu ladnaado maroon si la mid ah waxa ka falceliyay fanaanin badan dhaawaca toogashada Lil TJ oo ay kamid yihiin Lil Baby jacaylkiisii hore iyo sidoo kale gabadha Lil TJ hore wada hadli jireen Ruby Rose iyo sidoo kale raabarka magaca weyn ee Tekashi 69 kuwaasoo dhammaantood la qaybsaday dhaawaca damqashada oo u rajiyay caafimaad iyo inuu ka soo kabta dhaawaca halista badan ee uu dareemayo xidiga iyo raabarka caanka ee Lil TJ. waxayna isticmaalayeen dhammaantood qoraallo isku mid iyo odhaahyo isku wada mid ah oo intooda badan ay leeyihiin aad ayaan uga xunnahay dhaawacaya dhibka soo gaadhay fanaanka Lil TJ sidoo kale aad ayay u foolxun tahay inaynu weyno mar kale raabar daayar oo aad u qurux badan fankiisana aad loo jecel yahay iyagoo ku hoos laraya dhimashada fanaanintii ka horreysay ee Tupac, XXXTentacion, King Von, Juice WRLD, Young Dolph iyo qaar badan oo kale oo hore loo dilay dhimashadooduna ay toogasho ahayd waxaanay markasta hoosta hashtag ka raacinayeen nabad iyo badhaadh ayaan ku rajaynaynaa iyo inaad ka soo kabato dhaawaca iyo dhibka ku soo gaadhay raabar Lil TJ. As of right now, Lil TJ is still unconscious but stable.
intaasna waxaan ku soo afmeeraynaa xogta iyo muuqaalka aan kaga hadlaynay xidiga iyo hobalka caanka ee Lil Tjay. waxaad nagula wadaagi kartaa qaybta commentiska fikirkaaga iyo sida aad u aragto qisada iyo wixii xog aad ka hayso intaba. ha hilmaamin inaad la gariso muuqaalka si uu u gaadho dad badan oo adigoo kale ah. sabskraibta si aad u hesho muuqaalada dambe, furo gambalaalka si ay kuu soo gaadho isla daqiiqada aan soo gelino muuqaaladeenna.